gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay badiba cuqaasha gobolka Awdal kulanka ayaa waxa ku wehelinayay gudoomiyaha xogayaha fulinta gobolka Awdal taliyaha qaybta booliska gobolka Awdal waxaana kulanku inta uu socday si weyn loogu lafaguray arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin horumarinta gobolka adkeynta nabadgelyada iyo sidii meel looga soo wada jeesan lahaa ammaan dooriyaha iyo waliba wacyigelinta xanuunka coronavirus iyo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa qaadashada kaarka codbixinta waxaana kulanka kadib goobta ka hadlay qaar ka mid ah cuqaashii kulanka ka soo xaadirtay waxaana ay goobta ka sheegeen soo yeedhay halkan uqaashi gobolka Awdal anagoo ah gudoomiyaha gobolka waan uga mahadnaqaynaa isku yeeritaanka laga wada hadlayay xaaladaha danaha gobolka dhammaan guud ahaan waxaan isku afkaranay gudoomiyaha gobolka Khayraalaas iyo uu mahadsan yahay Maxamed Axmed Caalim Timbaro iyo maamulkiisuba guud waxaan isku afkaranay guddi inaan soo dhisnay uqaasha baaylahaadii baa ku baahday amniga gobolku kuma filla bilayska jooga saldhiyada jooga kuma filla dhibaatadaasi la iska kaashin lahaa buu kulay la suuqayo yeedhay bahalka mukhadaraadka inagu soo batay sida kufsiga odayaashu ama caaqil ha ahaado ama yaanu ahaanin inay ka joogsadaan oo ka daba tagin dambiilayaasha ay u daayaan u sii daayaan sharciga u sii daayaan kaashado nabadgelyada oo barasaabka ay ka wada shaqeeyaan cuqaasho inuu kala maqnaanin waxa ka mid ah wacyigelin in la sameeyo ama xanuunka masiibada ha ahaado ama masiibooyinka kale mukhadaraad ha ahaado wacyigelin ballaaran oo gobolka haday cuqaal tahay iyo haday suldaan tahay iyo haday culimo tahayba iyadana gabcaha la isqabsado waxa kale ka mid ah oo aan u gudbinaynaa dadka in markaraysa wacyigelin lagu wacyigeliyo maalmaha kooban ee kaarka la qaadanayo taas oo muhiim ah u dambeyn cuqaashu waxay ballan qaaday oo la isku ogyahay in guddi soo samayso joogto ah oo la shaqeysa gudoomiyaha gobolka ama madaxda gobolka dhamaantood mudane Mustafa Cabdi Axmed Mustafa Duud xogayaha fulinta gobolka Awdal oo kulanka rasaabkii ugu horeeyay ayaan oran karaa iskugu yeedha amar nagu siiyo hadaan nahay maamulka gobolka in aan cuqaasha gobolka iskugu yeedhno anta runtii waxay ballan qaadeen inay barasaabka garab taagan yihiin runtii hadii la isku duubnaado oo cuqaasha iyo maamulka gobolka iyo mataqaanaa barasaabka iyo taliyaha qaybta la isku duubnaado runtii waxa soo baxaysa wax qabad wanaagsan baa soo baxaya gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro ugu dambeyn kulanka ka hadlay ayaa tiri idinku mahadnaqaya ajiibada ayaga ajiibteen yeedmadaan yeedhay waxaan idinku mahadnaqayaa go'aamada wax gool kale aynu wada qaadanay sida wanaagsan ee aad soo dhigteen waxaan filayaa hadii inteenaasu aynu isku duubnaanana wax badan inaynu ka bedeli karo gobolka wax badanna u soo kordhin karo inteenaas markaynu isku mowqif noqono qasab bay ku noqonaysaa inayna dhageysto dadku inayna dhageysto xukuumaddu inayna dhageysato hay'adu inayna dhageysto cid walba inayna dhageysto way ku qasbanaanaysaa intaynu si laakiin inoo kala jeedno foosto gulno baanu dhaaminaynaa baahiyo badan gobolka way ka jiraan cidii dabooli lahaydna waa inaga insha Allah inaynu ku guuleysanaa filaya si degdeg markaynu gudida cuqaasho helo go'aamo badan oo kale aynu qaadan karnaa maanta waxa inoo yaala koow waa wacyigelintaas oo iyada aanu baahnaynba waqti inaynu sii siino waayo cudurka halis badan buu inagu hayaa hawlaha kale nabadgelyada markii hore u hayseen cabashooyinkiina ama caaqilada bugta ha noqoto ama odayaal kale koofada iska qaatay ha noqoto idin barbar marayna waxa idin ballan qaadaya waxa ay soo gudbisaan wax idin ka qabto idina waxa idin ka doonayay marka inta ay isla helo wax badan baa inoo toosaya magaalada baa ku jirtaan macaayis duwayaasha gobolku qaaraan shaqaynin baa jira qaar wax qaldaya jira
cidda soo sheegaysa ka soo bixinaysa war ninkaas ma hagaagsanee inaga toosiya waa idinka waad baan idinku mahadnaqayaa wada shaqayn wanaagsan baan idin leeyahay mar walba nabadgelyada ka koowa wax walba talabaadna cudurka inagu soo korreyn noqday waxa kale inuu ka hadalaa waa adduunyo dhul iyo waxa insha Allah intaana si wada jira